عليكم ورحمة الله وبركاته وقبلين النصرة وإذ الله welcome to my YouTube channel إي مقال عصب وديرجلنا أصحابتي ظهر إلى جوكت وحين لا آتي هذا هسنتهين تاجر داي تاجرتين سبسكرايب كأجنال كي صارتين هذا هسنتهين أنت عصبنا وحين لا فضلا نقصوا بيرة أصحابتي ذي كم من نقطة إن شاء الله وحبضنا كفائدين وأتكم هاد العلسين عندي سوق بين دونا أو اللي بدي رجلنا وبضن إن شاء الله muuqaalka noo sheer gareeya like-ta ku badiya si uu meel dheer u gaaro saaxiibadaada iyo dadka maaragtay wax faa'iideystaan jecel u gaaro marka insha Allah xara maanta hal eray inaan ku iraado oo ka kaafin doono bilaadan oo dhan kale dhagtay ku soo taagantay indhaha xasan nasr maxay soo wadaa talo maxaan soo wadaa ma rabtaa inaad 10 u dhigto dadka hadii goor isku dayo inay hoos ku dhigaan inay ereyada ku sarbeebaan ayagoo aanan direct ku soo abaari karin hadii aad rabto kaliya adoo qoslaayo waxaad ku tiraahdaa nafteyda waad mahadsantahay inay tustay awoodaha qarsoon Ilaahay subhanahu wa ta'ala isii una mahad cilmi mar walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee awoodan ku siiyay waayo dadkaas inta badan hadalada ku sarbeebayo aan direct ku soo abaari karin ee isku dayaya maaragtay ayagoo maaragtay waxyaabo aan jirin intay maskaxdooda ka soo abaabusheen kugu soo daba gambanayo kaliya waxay ku qori laayihiin wanaaga quruxda aqliga kartida edaabta aqyaarnimada maskaxda Ilaahay ku siiyay sidoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhigay iyo adiga saad u dadaashay kaliya ay ku qori laayihiin ayagoo taas marka aanan positionka aad joogto aan imaan karin ayay waxay soo maraan meelo jid wasaq mareen ah meelaha biyaha maraan waa aragteen aad ay wasaq badan aad ay ur badan yihiin meelahaasi ku soo marayaan erey waxay ku leeyihiin oo ay u maleeyaan inay adiga kugu dhaawacayaan laakiin waxaad uga badan kartaa oo kaliya adoona la goosgoosanin inaad tiraadid waan filayaa inaad bishinkan iyo hadaladan aad la iimaanaysid adigoo waliba qalbiga ka dhoola cadeynayo dhoola cadeynta afka waxa ka muhiimsan midda qalbiga waayo dad badan oo waxa jiro afka ka dhoola cadeeyo laakiin qalbiga ka gubanayo marka dadka afka ka dhoola cadeeyo oo qalbiga ka madow waxa kamid ah dadka aan ku soo sheegay ee hadalada ku sarbeebayo halada kugu bahdilayo isku dayayo inay hoos ku dhigaan marka adiga waxaad noqotaa qofka qalbiga dhoola cadeynta oo ka dhoola cadeynayo adoo qalbigaaga inta ka soo dhoola cadeysay dhoola cadeynta qalbiga intay afka u soo gudubtay afka adigoo qoslay waxa ka tiraahdaa aada u mahadsan tahay waxa ay tustay ama ay xasuusisay awoodda nafeed ee aan leeyahay iyo wanaagu Ilaahay subhanahu wa ta'ala isii ee dadaalka aan dadaalay nafteyda aan ku dadaalay ayaad i xasuusisay ku dheh qosolkii afka ka qoslay ayaa dib ugu cararayo marka yaa raay labadiina adiga raay adigoon dagaalamin adigoon qaylinin afka ku aarso adoon qofna ku xad gudbin eraga waxa la rabaa aad dhigaysid dadka markay erayada qaar ay kugu dhahayaan eragaaga aad dhigaysaa waxa laga cabsado waxa la rabaa dadku markay isku dayaan inay eray ku sarbeebaan inay dhahaan hebel ama heblaaya naga daaya wax loo masarbeebi karay waa naga horeysaaye ka nixi dadka waxa uga nixisaa awoodda qarsoon ee aad leedahay aan ku soo sheegay waa ogaa waxaad leedahay awood qarsoon awooddaada qarsoon isticmaal haddii aad awooddaada qarsoon aad isticmaalin waxa ka faa'iideysanayo dadka aan ku soo sheegay marka isticmaal awooddaada qarsoon oo alla ka cabsiga ugu horeyso
kalsoonida ay number 2 ku tahay, kartida ay number 3 ku tahay. kalsoonida ka dhigo ushii dadkaas aad ku garaaci lahayd. ushii caadiga maaha yaa. ushii caadiga haddii la isu garaaco waaba laga bogsado, laakiin qofka isu kalsoon wuxuu bahdilaa ama uu hoos u dhigaa qofka aan isu kalsooneyn. isticmaal kartidaada. qofka kartida leh ee naftiisa ku dadaalo ee position sare geeyo wuxuu sidoo kale wataa ul special ah oo ku garaaco dadka aan kartida lahayn. marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka cabso, isticmaalna awoodaha qarsoon aan kuu soo sheegay. waa ogahay inaa intaas awood aad leedahay, laakiin haddana ma isticmaashid. marka lagu yiraahdo ereyada qaar sariirta dib ugu soo laabataa. saaxiibada ama qof kale ku tiraada hebla saasi itri ama hebel saasu iri. markuu video ku soo gaar kadib waxaan rajaynayaa inaad isticmaali doontid awoodaha qarsoon. waxaan ku leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. meel baad joogtiin fi amaanillah.